بسم الله الحمد لله guddoonka labada aqal xildhibaanada labada aqal guddiyada labada heer iyo dhammaan saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda asalaam waxaan rabaa inaan gudagalo qodobada aan baarayo waxaan rabaa inaan qodobka 17aad oo ka hadlaya qodobka 17aad oo ka hadlaya xorriyadda diinta iyo caqiidada meesha waxaa ku qoran waa la tiray sababta loo tiray iyo cidda lagala tashaday guddigu waxay sheegeen haddaanan qaldanayn in culummada lagala tashaday marka culummadu waa lala tashan karaa waa sax laakiin waxaa ku qoraya qodobkaas qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu ku dhaqmo diintiisa marka diinta sida la sheegay ku laalaabashadeeda haddii lagu laalaabto dhibaato badan ay sheeg aa lagala kulmaa anigu waxaan qabaa marka qodobkaas in sidiisa loo daayo waa la tiray calaamadaha saaran meeshan waxaa ku soo qortay in la tiray intaa kadib waxaan rabaa qodobka 17aad ay ku soo qorteen xurmadda hoyga waxaa ku qoran qofna hoygiisa ama meelaha kale iyo waxyaabaha u gaarka ah lama baari karo lamana basaasi karo iyadana waxaan qabaa baaritaanku wuxuu leeyahay siyaabo kala duwan ama waddooyin badanaa loo maraa in qof la baaro waxaan isleeyahay marka baaritaanka wax aan la baari karin inaysan jirin aan u aaminsanahay aniga waxay ila tahay marka qofka hadduu xasaanad leeyahay isaga iyo gurigiisa laakiin qof walba wax walba wato waa la baari karaa marka iyo waxa uu wato in laga daayo aan qabaa aniga taas waxaan kaloon qabaa isla qodobka 18aad oo ka hadlaya bannaanbaxyada iyo cabashooyinka waxaan qabaa waxaad ogtihiin waxaan soo saarnay labadan qodob waa iskeenayaan qodobka 17aad iyo 18aad xeerara ka yaala bannaanbaxyada iyo amniga iyo baaritaanka waayadoodu waa ogtihiin waxaan annaga baasgaraynaa jirta shuruucdaas xeerarkaas annaga aan baasgaraynay oo dastuurku uu beyska u ahaa waxaan isleeyahay dastuurka in lagu qoro waxyaabaha oo beyska ah si haddii xeer ka yaalla uu jiro loo waafajiyo haddii xeer sharci xeer yaalla uusan jirinna si xeer looga sameeyo marka bannaanbaxyadu waxaan isleeyahay xaaladda markaas lagu jiro ama meesha markaas lagu sugan yahay in hadday tahay amniga iyo wax waliba markaas jiro in la waafajiyo waxay u baahan tahay marka in hadday tahay wasaarad iyo hadday tahay cid kale oo calaaqado leh sidii booliiska in loo qaato fasax iyo laakiin aysan ahayn in bannaanbax la iska samayn karo oo ii sheeg banbax la iska samayn karo waxaan isleeyahay marka xeerara ka yaallo haddaysan ka aalin in laga sameeyo laakiin dastuurkii inaan waxba laga samayn karin inaan lagu qorin taasaan ka leeyahay isla qodobka 15aad qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu ku biiro dad kale waa maxaa dadkaas waxaan isleeyahay marka qodobkan 15aad waxaa laga soo minguuriyey qodobka 16aad haddaanan qaldanayn mararka qaar waxaa is leedahay ama sida hore loo daayamay roontaaba waayo waxaa laga mid noqonayo inay caddaha waaye marka in lagu qoro qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu ka mid noqdo ururo ama urur siyaasad ha noqoto ama urur shaqaale ha noqoto ama urur waxbarasho ha noqoto laakiin meesha cid kale iyo waxaas lagu qorayo in urur lagu qoro
ururkaas lasii faahfaahiyo aan qabaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.